laga qayb galo oo si mugle oo miisaan leh hal looga qayb galo oo dadka tijaarta ah iyo cid kasta oo wax targeysan kartiba ha ka qayb galaan dhibaatada dabka qarxaya inta badan waxyaabaha keenaya waxa kamid ah meheradaha iyo meelaha bacadlayaasha ee dadka ganacsatada ay ka shaqeeyaan oo jidadkii la xidhayo jidkii baa la xidhayaa dadku ay soo marayeen ama halkii dabdamiskuba uu marayay ayaa la xidhayaa wadadii baa lagu soo durkayaa wixii oo dhan baa wuxuu noqonayaa wax madaxa iskula wada jira madaxa isla wada galay oo adigaagan lugaynaya meel aad martaan aan helaynin meel allaaliya meel aad dadka ka martameelaysa taasi markaa waxay keentay dhibaatooyinka khatarta ah oo kumanaan qof inay markaa ku khasaaraan oo malaayiin lacag lagu waayo marka qofkan dad xidhaaya wadada xidhaya waa inuu ogaado dadka inuu dhibayo oo ummadda uu dhibayo dhibaatada ka timaadana qayb buu ku leeyahay والنبي صلى الله عليه وسلم مركا وليه إمادة الأذى عن الطريق إيمانك أيه كمتاي والله لا ما إيمانك كمدا إيمانك وحلا لامو بدن بوليه وحوصل هيسا كلمة التوحيد وعن الله سيسا إمادة الأذى عن الطريق إن دبت طريق لقا قاضي وحيدت كدبايا ood haday taalo haday biri taalo haday laf taalo hadu bir taalo hadu qashin yaalo waxa in laga qaado waa calaamad kamid calaamaadka iimaanka hadaad xidhana maxay noqonaysaa hadaad xidhaba wadadii ka waran oodabad awdo iimaankaaga daciifa dhibta ka timaadana dariiqaad xidhay dhibta ka timaadana qayb baad ku leedahay marka waxyaabaha laga bixi kara waxa kamid ah in la xoojiyo hay-adan dabdamiska oo ay shaqayso oo qalab wanaagsan loo iibiyo wadooyinkii ay marayeen loo diyaariyo hadday meel ay maraan ba ayna jirin maxay qabanayaan waxaan qaban karaan waa in intaas isla basto sidaa darteed inta meelood ee gubatay ee Soomaaliya ay leedahay dhan way bastay way bas beeshay waxay noqotay dambas waayo meel alla meel laga galaba male waani laga maalay way xiriirigi iyo wadooyinkii la xidhay dhibaatada ka dhacday wataas waxaan leeyahay markaa dadka ku dhibaatooday ee dhibaatada ay soo gaadhay oo dabka ku dhibaatooday dabka ka dhacay magaalada Jigjiga suuqa weyn ee gubtay oo ilaa 930 meheradood ka badan sida la sheegay waxaan leenahay إلهي سبحانه وتعالى بدل خير قباسيه أو إلهي عوض خير بدنها وقبدله أن قفك مسلم كان مركا الدبات سوق عنه وينه حق إلهي ونغضه حق إلهي وينه نغضه وينه قرطه مال كان إلهي نسيي نبتن تمضينا إلهي نكاني وينه حق الله ونغضه مركا حولها أنا هاي سنه يعني كشقي سنة إنه يعني هاينا إلهي نسيي والنعمة نعمة داسي وإن الإله يقول ما هنغنم واجب كإلهي أو نقول واجبي مال كاسارنا وين نقدرنا إن بدن واحد عذا إن مال كسكذا ولا قبحين واي مال كمركز كذا لقى بحين واي سكذا إلهي يكون واجبي مركز لقى بحين وايو وبركة بيليا بركة ما يلنا لباتوين كابلنا وحيالا بركة تراي كمتاي يعني إن لقى بحين وايو سكذا لقى بحين وايو مركز زكاة كبحية حولها ضيستان زكاة كبحية وقرابة كحريرية وددك دباتيسان تاكولية وقرتا مال كان إلهي ونسيي إنو يا امتحان إلهي نقول امتحاني كباهن مسكين كا قاجد الله لما بقلين إلهي وموعين لكن انت وحيستو إلهي كو امتحاني dadka tijaarta ay waxaysta Ilaahay waxsiiyay walaalahooda dhibaatoobay ee dhibta ay soo gaadhay waxa taraan way laga qayb galo markaa dhibaatada ka dhacday Jigjiga oo meeshii noogu dhaweyda oo jaarkeena way wax la qabto way la taakuleeyo waa waajib nasaaran way
إلهي وحليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحي وناقا إلا يسكوك عن سيوي والقف شري وحيستي وغنيها وتاجرها أيام مانتا صعبا مرة لسو جوغا وحبهيني أضيبنا والديركسين توضيستا وغني باتاي تاجر باتاي هنتي بلان باتايستا وحكبحي وقفك والالكايا واحتر هنتي دادا وحكبحي وإلهي يقول دو أجر بلان باتكالي والدرين كدتك مسلمين أي سكوليين وي نبينا صلى الله عليه وسلم يحري مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر والحمى واسكت درين ضدك مسلمين واسكت درين وقفك ولالك يا مرميالك السؤال كل باتيسية وين درينتو معاذ ملايين يسامر كقف سوماليا أو إلك أو ولالك أو دباتوبي معاذ ملايين يسامر سومالين وين تايقول رونين تابي باحي وضد واحترك إيه استاقلين تكون أكسن وعن لهاي هلقا قيب قلو